qaybtan waxaan kusoo gudbinaynaa dadweynaha daawanaya oo aad ula dhacsan bandhigga libaaxyada saarkaska ee waddanka Masar, halka tababaraha libaaxyada uu ku amriyay una ishaarayay inay sameeyaan waxyaabo cajab gelinaya daawadayaasha. laakiin mid ka mid ah libaaxyada ayaa si lama filaan ah jawiga goobta u bedelaya, wuxuuna ku boodaya tababaraha, dhulka ayuuna dhigayaa. carruur iyo ciroolaba qayle ayay afka furanayaan, si hambar ah ayayna meesha uga cararayaan, halka tababarihii libaaxyada uu halgamayay sidii uu naftiisa u badbaadin lahaa. like garee oo share garee videoga, isla markaana subscribe garee channelka. kani waa weerarka argagax badan ee uu libaaxu ku qaaday Islam Shaahiin. ku soo dhawaada qiso kale oo argagax badan. Islam Shaahiin wuxuu ka shaqayn jiray madadaalada iyo waxyaabaha dadka cajab gelinaya. wuxuu carbin jiray libaaxyada, wuxuuna ahaa mid cajabiyay daawadayaasha waddanka Masar sanado badan. in badan oo ka mid ah daawadayaasha waxay aaminsanaayeen in shaqadiisa ay tahay mid aad u qalafsan, halka qaar kalena ay ku bogaadinayeen shaqada uu hayo. xilligii uu carbin jiray xayawaanka ugu khatarsan caalamka waa boqorka duurjoogta. goobtan loogu magac daray qaryada libaaxyada ama Lion Village waxay 1 saac iyo bar u jirtay caasimadda Qaahira. booqdayaashu waxay bixiyaan lacagta lagu galo goobta si ay u arkaan libaaxyada, shabeelka, masaska iyo noocyada kala duwan ee xayawaanada. xayawaanada goobta lagu hayay waxay ahaayeen kuwo aad u liita oo xaalad xun ku jira, waxaana ciriiri ku ah goobihii lagu hayay. qaar badan oo ka mid ah waxay la ildarnaayeen nafaqa darro aad u baahan. sidaas ay tahayna goobtani waxay ahayd marba marka ka dambeysa mid dadka soo jiidata, siina caanbaxaysa. Islam wuxuu carbinayay libaaxyada muddo 13 sano ah, wuxuuna ahaa mid kalsooni badan ku qaba libaaxyada uu carbinayay. saarkaskan ku yaala magaalada Alexandria wuxuu ahaa mid ay aad u garanayaan dadka deegaanka. goobta waxaa soo buux dhaafiyay maalintan dumar iyo ciyaal aad u tiro badan oo aad ugu xiiso qabay inay arkaan sida libaaxyada loo carbiyeeyo. tiro aad u badan oo ciyaal iskuul ah ayaa meesha soo buux dhaafiyay. laakiin u kaadi, wax laga naxo ayaa meesha ka dhici doona. daawadayaasha iyo Islam waxay la kulmi doonaan arrin fajiciso ku noqon doonta. kasoo qaybgalayaasha waxay si degan u sugayeen inuu bilowdo showga, halka musiga iyo qobka ciyaarka uu ka socday qaybta backgroundka ee showga. waxaa jiray qafis ay ku jiraan 3 libaax oo mid walba uu gaarayo in ka badan 250 kilogram. libaaxa cusub ee ku jira kooxdan libaaxyada ah waxaa dhawaan laga keenay waddanka South Africa. nasiib darro, waxaa loogu talagalay inuu u noolaado maxbuus ahaan noloshiisa oo dhan oo ay dadku daawadaan. laakiin sida ay qabaan qaar ka mid ah carbiyayaasha libaaxyada, way adag tahay in si dhaba loo carbiyeeyo xayawaanada hilibka cuna ee duurjoogta ah. libaaxa cusub wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh. wuxuu lahaa tin aad u fara badan oo qurux badan iyo jir murqa ah oo awood badan. markii uu ku istaago lugihiisa dambe, wuxuu ahaa mid aad uga dheer carbiyayaasha. waxaa ka muuqday caddaymo muujinaya inuu xilli kasta isbedeli karo oo uu weerari karo dadka carbinaya. hadda ka hor ayuu weeraray mid ka mid ah carbiyayaasha oo uu dhaawac daran u geystay. haddana sidaas ay tahay, dib ayay ugu soo celiyeen masraxyada iyo bandhigyada iyaga oo aanan waxna ka qaban dhibaatadii uu horay u geystay. way iska fududaysteen, waxayna u qaateen inuu wakhtiga bedeli doono oo uu la qabsan doono tababarka. libaaxan looma carbiyeenin in ku filan si la mid sida libaaxyada kale loo carbiyey, wuxuuna ahaa mid laga dareemi karay khatarta badan ee uu soo wado fagaarayaasha bandhigga dhexdooda. inkasta oo uu ahaa libaax ku jira qafis oo cuno hilibka ay siiyaan tababarayaasha, haddana dareenkiisa dabiiciga ah ee bahalnimo kama baabi'in weligiis. maxamed mustafa oo ah afhayeenka xerada Lion Village waxa uu sheegay inay ahayd xilliga libaaxyada ay isboodaan, dareenkooda iyo shucuurtoodana ay aad u kacsan tahay. hormoonka testosterone ayaa aad u sarreeyay jirkiisa libaaxan. in libaaxyada lagu qasbo inay sameeyaan waxyaabo dadka cajab gelinaya, sida inuu meel dheer ka boodo ama in labada lugood oo dambe uu ku istaago oo uu ku socdo, waxay ahayd khatar weyn, gaar ahaan markii lagu jiro xilligan oo kale sanadka oo loo yaqaano mating season. markii uu mid ka mid ah libaaxyada soo fuulay sallaanka ama jaraanjarada
Islam ayaa ku amray inuu afkiisa kala qaado si uu carabkiisa ugu taabto ul yar oo gacanta ku sitay. Micihiisa dhaadheer ayaa ahaa kuwo bannaanka yaala oo ay daawanayaan dadka showga ka soo qayb galay. Laakiin libaaxa saddexaad oo cusba lagana keenay waddanka South Africa wuxuu ahaa mid meeshiisa taagan isagoo fiirinaya tababara Islam. Wuxuu taagnaa meel dhowr mitir u jirta tababaraha isaga oo aanan ka qaadayn tababaraha indhihiisa oo aad moodo inuu isu diyaarinayo weerar. Laba tababare oo kale ayaa kula jiray Islam fagaaraha. Kulligood waxay gacanta ku siteen ula ay u isticmaalayeen inay libaaxyada ku carbiyayaan. Waana waxa keliya ee ay haysteen oo ay isku difaaci kareen. Haddii ay wax qaldamaan ma jirin qorshe degdeg ah oo ay isku badbaadin karaan haddii libaaxu maago inuu weerar soo qaado. Islam wuxuu u lulay ushiisa mid ka mid ah libaaxyada isagoo u ishaaraya inuu hal tallaabo hore u soo qaado. Laakiin waxa ayaa sabab u noqday inuu libaaxa cusub weeraro tababara Islam. Indhihiisa waxaa laga dareemi karay carab badan iyo kacsanaan zaa'id ah. Wuxuu bilaabay inuu saynta ku garaaco labadiisa dhinac wuxuuna u soo dhaqaaqay dhinaca Islam. Haddii ay ahaan lahayd cadaadis uu dareemay kacsanaan dabiici ah, gaajo ama wax kale oo uu qoonsaday libaaxa, wuxuu ku booday Islam. Ilbiriqsi gudaheed Islam wuxuu isku dayay inuu ka baxsado goobta. Laakiin libaaxu wuxuu ahaa mid sidii hilaaci oo kale u yimid. Wuxuu dharbaaxo xooggan oo dhulka ka qaaday ku dhuftay tababare Islam. Isla markiiba libaaxu wuxuu u qastiyay inuu qabtay Islam dhuunta. Wuxuuna afka la helay Islam madaxiisa iyo qoortiisa isagoo weliba si fiican afka uga buuxsaday oo ku horjiidaya daawadayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha showga oo iyaga laftooda dhinacooda u argagaxsan. Intuu labadiisa logood ku istaagay ayuu kolba cad qaniinayay weliba saxara ku jirta. Dhiigana wuxuu ahaa mid ka qubanaya meel walba oo ka mid ah jirka tababare Islam. Libaaxu wuxuu ahaa mid aad uga dheer aadna uga xoog badan mudana Islam. Islam wuxuu ahaa mid aan dhaqdhaqaaq samayn karin iska badaa inuu istaagay. Durbaaxadii ugu horeysay ee libaaxa ayaa jihada dhan ka lumisay kana dhigtay sidii camal qof kooma ku jira. Libaaxu wuxuu ahaa mid aad u caraysan oo gurxamaya isla markaana faaganaya xilli afkiisa uu ka buuxay dhiig mudana Islam wuxuu isku dayay waxoogaa inuu nuxsado oo uu libaaxa iska riixo. Laakiin maya, taasi suuragal maaha. Maxaa yeelay libaaxu wuxuu go'aansaday inuu dilo Islam. Suuragalnimada inuu noolaado ama ka baxsado libaaxana aad ayay u yartahay. Laakiin wuxuu u halgamayay inuu ka badbaadiyo naftiisa bahalkan xoogga badan. Waxoogaa kadib waxaa go'ay music iyo qoobka ciyaarkii. Waxa kaliya oo la maqli karayna waxay ahayd qaylada iyo oohinta dadkii showga ka soo qayb galay. Laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah daawadayaasha ay la soo baxeen moobiladooda si ay u duubtaan dhacdada naxdinta leh. Carruurta meesha ku jirtay ayaa ugu darnaa dadka argagaxay. Markay arkeen waxa meesha ka socda, waxaa meesha ka dhacay buuq iyo jahawareer. Dadkuna meesha way iskaga carareen iyagoo meesha uga tegay saddexdii nin iyo saddexdii libaax oo dagaalamaya. Isla markiiba tababarayaashii kale waxay sameeyeen falcelin degdeg ah iyagoo isku dayay inay libaaxa argagaxiyaan si ay uga fujiyaan saaxiibkood Islam. Waxay ku garaaceen libaaxa ulihii ay gacanta ku siteen, waxayna ka garaaceen libaaxa feeraha iyo qaarka dambe markii libaaxu ku dhaganaa mudane Islam. Laakiin libaaxu dhag jalaq uma siin, wuxuuna uga sii daray tababaraha oo qaniyada iyo xangaruufada ayuu ku badiyay. Qoorta ayuu ka jibiyay isagoo micihiisa dhaadheer uga qabtay fooqa sare ee wejiga iyo madaxa. Shanqarta dildilaaca lafaha iyo hilibka uu rifayay libaaxa ayaa uun la maqli karay. Mar kale libaaxu wuxuu ku bilaabay qaniyo garabkiisa isagoo weliba madaxa jafaalinaya markii uu qaniinaba si uu micihiisa xoogga badan ugu quusiyo jirka tababaraha hilib badanna u jaro. Sidoo kale libaaxa ayaa dhuunta qabtay ninkan, laakiin saaxiibadiis ma ahayn kuwo quustay. Waxay ku sii wadeen libaaxa inay ku sii garaacaan nolohooda ilaa ugu dambeyn uu sii daayay ninka oo dhinac uga booday. Kadibna wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo oo meel dhinaca fadhiisto isagoo faaganaya oo ciida sayraya. Afkiisa waxaa ka muuqday kana qubanaya guduudka dhiigga mudane Islam. Waxaa loo yeeray ambulance. Dhaqaatiirta gargaarka waxay isku dayeen inay dhiig joojin u sameeyaan ninkan iyagoo sharaya duleel weyn oo dhuunta kaga yaalay. Islam wuxuu ahaa midaan inna ha yaraateen nuxnuxsan karin, aananna hadli karin.
indhihiisu waxay ahaayeen kuwo dadan oo uu dhiig u qariyay, waxaana dhib ku ahaa inuu naqaska qaato. garaaca wadnihiisa wuxuu ahaa mid aad u hooseeya kuna dhow inuu istaago. gurmadka degdega ah ayaa yimid. Islam waxaa loola cararay isbitaal lagu magacaabo Dar es Salaam Hospital oo ku yaala Ismaawa area bariga caasimadda Alexandria. waxay ahayd tartan lagula jiro waqtiga si loo badbaadiyo ninkan. waxaa gaaray jabniin xagga lafta madaxa ah, dhaawacyo daran oo wejiga iyo dhuunta ah, feeraha oo jajaban, iyo caloosha oo ay xiidmuhu ka qubanayaan. dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan ninkan, laakiin nasiib darro wuxuu u dhintay dhaawacyadaas daran 2 maalin kadib. geeridiisa kadib, goobtii Lion Village waa la xiray ilaa la sameeyo baaritaan dhammaystiran. kadib dhacdada naxdinta leh, waxaa soo baxay sawirro muujinaya Islam oo u dhowaanaya libaaxyada, afkiisana intuu wax geliyo ku siinaya mid ka mid ah libaaxyada. sida iska cad, wuxuu ahaa midaan wax cabsi ah ka qabin libaaxyada, laakiin laga yaabo sababtan inay qayb ka tahay dhammaadka noloshiisa ku soo dhammaatay sida naxdinta leh.